dagaalada ka socda magaalada Boorama ayaa waxa uu galay meel xasaasi ah waxaana lagaga dhawaaqay jamhad markaasi magaalada Dila halkaasi oo ay dhalinyaro markaasi hubka ay la soo baxeen kuwaas oo wata qoryo bardololo ah iyo sidoo kale AK47 waxaana la sheegay in tiro boqolaal markaasi jamhad ah oo markaasi beesha reer Nuur lagu magacaabo ayaa la sheegay in ay markaasi magaalada Dila buurdin cashe ka xigta inay kaga dhawaaqeen sawiradan hadda aad arkaysaana waa magaaladaasi Dila meel markaasi 5 kilomitir qiyaas ahaan u jirta waxaana la sheegay inay hadda doonayaan inay gaaraan magaalada Boorama oo markaasi ay ciidamada beesha Isaaq ku laayeen dadka Samaroonta ah ee halkaasi dega haddaba wararkii ugu dambeeyay sidoo kale xogaha dheeriga ah aan helayno ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ka bilaabmay dagaalkii Laascaanood lagaga saaray 15 daqiiqo beesha dhulbahanta ay kaga saartay beesha Isaaq ayaguna Samaroontuna ay wado inay doonayaan inay beeshaasi Isaaq kaga saaraan magaalada Boorama sidoo kale daawadayaal waxa xusud mudan in magaalada Boorama gudaheeda laga taagay calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida halkan idinka muuqata waxa wiil dhalinyaro ah ayaa waxa uu doonayaa inuu saaro bir markaasi dheer isagoo doonaya inuu calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dusha sare intuu saaro ka babyo hadda halkan aad arkaysaan waa saldhigga dhexe dhabarkiisa oo markaasi ay doonayaan inay calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya saaraan sidoo kale daawaday halkan aad sawiradan iyo muuqaaladan arkaysaan waa bartamaha magaalada ama faras magaalaha oo lagu gubay taayiro iyadoo la doonayo in ciidamada beesha Isaaq ay saga baxaan ee dadka ku leynaya gudaha magaalada Boorama dadka markaasi dega magaalada Boorama maanta waxa u daaran heestan oo kale daawadayaal jamhadda lagaga dhawaaqay magaalada Boorama iyo sidoo kale ciidamada markaasi la doonayo lagaga qorsheynayo magaalada Dila wixii waraya akhbaar halkan ayaan idinka soo deyn doona sidoo kalena daawadaya gobolka Salal oo markaasi magaalada Lughaya Lowyacado ninka dhawaan lagu dilay taliyaha hawshaniba ka bilaabantay ayaa waxa la sheegay in deegaamo badan oo lagu teedsan gobolkaasi Salal sida Garbadadar iyo Saylac iyo sidoo kale Lughaya meelo kala duwan in markaasi banaanbaxyo lagu taageerayo dadka magaalada Boorama degan ee banaanbaxa dhigaya iyaguna dadka deegaankamadaasi ay banaanbax sameeyaan daawadayaal wixii warar ka soo kordha bogga Cabdiwali Nadaara iyo sidoo kale warbaahinta Hogal News ayaan dib soo gelin doonaa ee fadlan muuqaalkan si share gareey si aad Soomaalida kale ee caalamkana loo gaarsiiyo dulmiga ay beesha Isaaq ku hayso dadka dega gobolada markaasi Awdal